بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الزاهد رسول الملك الصمد واحد صلى الله عليه وسلم. dhalinyaro maanta waxaynu joognaa heer aan ka faanno dalagyadii annaga aan lahayn raashinkeena inaan ka faanno. waxaynu joognaa wax aan la aqoonin inaan cunno, waxaanan ogeyn meesha ay ka yimideen iyo qaabkii loo soo bireeyey inaan ogeyn inaan iska cunno. waxaynu joognaa inaynu ku meydhanno saabuun waxay tahay oo laga sameeyey aynaan ogeyn annaga. waxa weeyaan dhallinyarada aqoonta leh ha baraarugto oo ganacsatadan ha baraarujiso. ganacsatadii waxay sameeyeen wax wanaagsan bay sameeyeen, ganacsigoodii way horumariyeen, laakiin dalagyadii dalka ayay maaragtay curyaamiyeen. waxa weeyaan dalagyadii dalka waa la curyaamiyey, male dhaqdhaqaaq male, beerihii male waxayn kalluunka unbaa xoogaa yar socda. kalluunka ogaada waxaynu quudin karnaa oo hadda ka horna aan sheegay 75 milyan 76 milyan baan oran lahaa 76 milyan ayaan halkii dalag aan ka quudin karnaa oo bini aadan ah. waa dalagyada ka soo go'a jubbada hoose, webiga jubba meesha oo labada webi ugu kala baxo ka bilaabata beledulkariim halka la yidhaahdo oo jilib ku aadan 7 kilomitir u jirta. halkaas keliya wax ka soo baxa ayaa lagu quudin karaa 76 milyan oo dad ah. waa hal dalag ma ahan yani sanado ma ahan la isku daray. digaag waxaa jooga dalkeena kuwii ugu wanaagsanaa, ugu macaanaa, ugu quruxda badnaa ee ugu tayada fiicnaa caafimaad ahaan. waxaa jiri jirta waagii hore xanaanooyinka inay xanaanaystaan dadka digaag ee maaragtay ka shaqaystaan naaladeeda, macnaha ukuntii iyo ayadaba ay ka ganacsadaan. isla ayada unbaa isdhali jirtay. waxyaalahan hadda mashiinka lagu dhalinayo ma aysan ahayn. waagii hore markaa leena beri fogba ma aha, waa burburka 91kii 1991kii wixii ka horreeyey. 1990 markii la gaaray ciribtir baa lagu bilaabay. beerihii waa la baabi'iyey, waa la curyaamiyey oo fatahaad iyo argagixiso ayaa la dhex dejiyey. digaaggii wixii waa la baabi'iyey, suuqa laga bixiyey. ka hor intaan la curyaaminta waxaa ku soo bilaabatay beeralayda markuu dalaggoodii soo go'o in mucaawano la keeni jiray dalka, ay suuqa ka dhigi jireen, raqiis ka dhigi jireen. maalan halka 100 kiilo ama 50 kiilo ee haruurka ah ama galeyda ah ee uu ka joogo $10, waxaa la keeni jiray haruur jooga $3. ninkii beeralayda ahaa cid ka gadanaysa male, kii saddexdaa la wada aadaya dadkii. sidaa baa horta lagu curyaamiyey. aqoontii ha baraarugto oo waxaan dib u habayn ha lagu sameeyo oo waxaan xal ha loo raadiyo. xalka waa garan kartaan, waa dagaal lagu soo qaaday oo gumaysigii maskaxda inagu soo qaaday. meel kasta aad tagtid digaag baad cunaysa oo cid soo biraysa aadan ogeyn maaragtay meesha laga keenay, ama China laga keenaa ama Brazil baa laga keenaa. waa aynan ogeyn markaan leenahay waxa weeye ma naqaano inay maaragtay sumaysan yihiin in kale ma garan karno. sababtoo ah waaxdii control leh tayada raashinka ayaa loo baahan yahay inay active ahaato. waaxdii control leh raashinka ayaa la doonayaa inay dhiirigeliso beeralaydii dalka. weli beero way jiraan, beeriyo dhan ma wada baabi'in, beeriyo idil fatahaad laguma baabi'inin. fatahaadda ma ahan wax iska nature maaha, waa wax bini aadan sababay ee sameeyey loogu talagalay in dhulbeereedkaas. hadda maalan marka Soomaaliya aan tagno shabeellaha dhexe halka la yidhaahdo waxay soo saari jirtay raashinkan ugu macaan bariis bay soo saari jirtay. bariiska halkii laga keeni jiray Asia
waa laga baxayo bariiskii ugu macaanaa ugu qurux badnaa ugu fiicnaa ugu tayada wanaagsanaa baa laga soo saari jiray magaaladaasi jowhar iyo hareeraheeda beeraha ku yaala maxaa la sameeyey qorshe waxaa loo sameeyey fatahaad waa dhibaato dhallinyaradu waa inay baraarugtaa aqoontii waa inay baraarugtaa dalkan waxaa badbaadin kara aqoon ayaa badbaadin karta macdinta waa la iska gurtaa waa anigii idiin sheegay shidaalkeenna wuu diyaarsan yahay wuu iska daboolan yahay soo bixintiisiyaa la iska rabaa annagaa la iskayna mashquuliya dhexdeenna shidaalka markaan leeyahay meel walbuu yaallaa ka soo bilow soomaali galbeed ka soo bilow wuu yaallaa jigjigo keliya 4 ceel baa taalla hal ceel unbaa furan aa lagu shaqeeyaa hal ceel keliya ayaa shaqeeya hal ceel weeyaan kan hadda laga qaato bursantaajka laga qaato macnaha boqolkiiba intaas laga qaato berigii hore waxay yidhahdeen boqolkiiba 5 waa laga gorgortamay iminka waxbaa lagu kordhiyey wixii lagu kordhiyey annaga ma garanayn laakiin muhiimaddu waxaa weeye inuu shaqeeyo 3 kale ayaa jirta isla jigjiga dadka ma garanayaan 710 ayaa afkooda ku qoran 710 markaad dhanka kale ka soo istaagtid kaliimo badan oo ayaan kaga hadlay 710 qoro dhanka kale u jeeda ama warqadda un wareeji waa oil sidaa ayaa ku wada qoran jigjiga keliya maaha zeylac tag maxaa la yidhaahdaa bulxaar tag ilaa berbera meeqa ceel baa jirta haye berbera ka soo bax waxaad timaadaa halka la yidhaahdo boosaaso imow waxaad timaadaa qardho imow waxaad timaadaa laasqori halka la yidhaahdo imow waxaad timaadaa garowe meel u dhow imow oo u dhaxaysa garowe iyo laascaanood inta u dhaxaysa laascaanood macdan kalaa taalla dadkii ma doonayaan ceerigaabo iska daawa macdanta dunida ugu qaalisan baa taalla dadka marka macdanta dunida ugu qaalisan la yidhaahdo waxay yidhaahdaan ma diamond baa diamond ma aha diamond wax ka qaalisan baa jira dunida waana la iska gurtaa maalin walbaa la iska qaataa maalin walba waana idiinsi sheegay baraaruga waxaa qaadashadaa waxaa kusii hoos jira masixid taariikhdeennii la masaxaya way halkaa ceergaabo ilaa buurtaa daalo buurta surcad hoosteeda waa surcad maaha suurad maaha suurad gaalkii unbaa u qoro dhawaaqiisa cac ma laha buurtaa surcad waxa yaalla ma malayn kartid taariikh weyn baa taalla raadadkii ambiyada baa yaallaan raadadkii baa la tirtirayaa si aadan u garan aadan u ogaan wiiliyow gabadhaya si aadan u baran wiiliyow gabadhaya markaa lee wiilka jooga ee gabadha joogta NFD iyo kan jooga Soomaali galbeed kan jooga Soomaaliya Djibouti meel walba meel kasta uu joogo ee Soomaali ah waa wada leenahay waxaan waa masaxaadda way nagu socotaa ugu taariikhdan nooleyn bay u baahan tahay jugraafigeena durbo aad aragtaan qaladaadka lagu samaynayo jugraafiga baddeena xeebta ugu dhir badan adduunka ee Afrika ayaanu leenahay xeebtanada waa 3333 kilomitir way dhirkeeda marka la yiraahdo marka la cabiro imika buugaagta hadda la keenay UNESCO ay keento ku qoran yihiin 3200 aw intii kala aw waxa laga raaridaa waa qaadanaysaa yaryarkaas la rabaa in laga sii tirtiro maskaxdooda oo taariikhda kadaalika loo masaxo wax badan baa sii masaxmaya ugu aw taariikhdii maxamuud xarbi aw taariikhdii sayidka aw taariikhdii geesiyadii gobonimada keenay SYL aw taariikhdoodii dugsiyada masaxaad baa ku socota dugsigii sare Saqaawdiin Sheekh Saqaawdiin kuma aha Saqaawdiin wuxuu ahaa ninkii SYL asaasay ayuu ahaa SYL waxay ahayd dadkii gobonimada keenay oo calankan maanta aan harsanayno inoo keenay bay ahaayeen magacyadii degmooyinka ayaa la bedelay wardhiigley degmadii loo odhan jiray wardhiigley waxay ahayd halkii gumaysiga looga soo duuli jiray bay ahayd iminka warta nabaddaa loo bixiyey warta nabadda taariikhda ee samaysay bal inoo sheega cashirkan halkaasaan ku joojinaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh